kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka dhaqaalaha islaamka waa barnaamij asbuucla ah oo idinkaga yimaada TV-ga Kalsan xaruntiisa dhexe ee uu ku leeyahay magaalada Garowe. barnaamijka dhaqaalaha islaamka waa barnaamij uu maalgeliyay bangiga Amal kana turjumaya xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa noqo xalaal cun waxaad noqonaysaa qof ducadiisa la aqbalo. barnaamijka dhaqaalaha islaamka waa barnaamij cabiraya himilada bangiga Amal ee ah inay bulshadu kala barato ganacsiga xalaasha ah iyo midka xaaraanta ah. haddaba daawade kala soco barnaamijka dhaqaalaha islaamka khamiis walba 6 maqribnimo markay saacada geeska Afrika ay tahay TV-ga Kalsan kuna soo dirso wixii su'aalo ah qabto ee ku saabsan dhaqaalaha islaamka iyo heshiisyada ganacsi ay bangiyada islaamka ay fuliyaan emailada iyo telefoonada shaashada kaga muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqaalaha islaamka waa barnaamij asbuucla ah oo ay maalgeliyay bangiga Amal loogana gol leeyahay in bulshada lagu baro dhaqaalaha islaamka wuxuu yahay. barnaamijkan wuxuu asbuuc walba in kaga yimaada TV-ga Kalsan khamiis walba 6 galabnimo asbuuca dhexdiisana marar kala duwan ayaa daawanaysaan. waxaana mar walba marti ku ah Dr. Ahmed Jaamac Ismaaciil Mire la taliyaha dhanka shariicada ee bangiga inta badanna aniga barnaamijka daadiya oo ah Cabdifataax Cajab. wax badan baanu ka soo hadalnay mucaamalaadka islaamiga ah waxaynu maraynaa qaybtii maalgashiga ee bangiyadu ay fuliyaan. دكتورك أيام كسر وين يا دكتور كسر وبرنامج كاجي دقالها إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبدالفتاح عجب إيو بهذا كلسن TV إيو ضدك مسلمين تنداون يا لمان وسلاميهين waxaynu hore uga soo hadalnay hawlaha bangiyada islaamiga ay qabtaan qaybtii maalgelinta iyo qaybtii adeegyada. waxaynu insha Allah taala hadana bilaabaynaa qaybta maalgashiga oo ah lacagaha uu bangigu ka qabto macaamiisha uguna shaqeeyo ama ugu maalgeliyo ganacsiyo laga rajeynayo in faa'iido ka soo baxdo. qaybtaasna inta badan waxay ku saleysan tahay عقدك أما كونترات كلي له مضاربة نقولها شريعة بيئة بكوس الله سنت إن شاء الله تعالى سيد مركب مانتا حلقة دي نكون قاضينا. جزاك الله خير دكتور ما دام أنه شاغني عقد وجبضا مالجشجع بنجيد فليان وهي مضاربة أريج مضارب تعريف كيس الصومالي هان وحلقة وضه. بسم الله الرحمن الرحيم مضاربة وكلمة عربية وكتبت من الضرب في الأرض وهو السير في الأرض وأقولك إن الصعودة وإنت بدنا جناح ستدو والسفران مركب مضاربة وإن لا صعودة جناحسي حاجة اللغة مركب لجأه حاجة اصطلاح شرعي جاء وإن قف هنتلاه يودي بول عكتيسي أما قريب من العكتيسة قف كشقية أو جناح كسمية فإذا كسر بحرنا أي وداجان سامي بقولي أكو وداجان ومركع عد سدا بقول كي بكونتني كنت في هذه اللقاءاته أما أفرتني اللحدن أما وحي لها المالة مركع مضاربة والي لهدا قراضنا والي لهدا لوضع والي لهدا قراض دي اللي أنا حكيت من قرضي وأهل الجويي لغاهن قطعي جاء ومعناه يقف العكس قريب كمدو سوق جوينية وحولي بيقف كشقية وبيع مشترية فهذا كسر بحلنا وحوداجية سامي بقولية وأي سلوجه وحوداجية قف هنتظر لها يقف كان كشغيني هنتظر مرة قف كشغيني وحالي رب المال قف هنتظر إسكاله وحالي رب المال قف كشغيني وحاليها مضارب أي اللي ده. وهجا دكتور
caqdigan marka oo mudaarabada ah mashruuciyadiisa iyo maxaa u ah xukunkiisa wuxuu yahay caqdiga mudaarabadu sharciyada islaamka waa ku bannaan yahay oo in qof ahaana uu lacagtii yeesho qofna uu shaqadii yeesho ilaa xilligii nebiga sal lla slam iyo ka horba waxay ahayd mucaamalo jirta oo dadku uu ku mucaamilo ibnu xasmin raximah allahu tacaala wuxuu ku leeyahay uu tilmaamayaa alqiraadu kana fi ljaahiliya wakanat qurayshun ahla tijaara لا معاش لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر والمرأة والصغير واليتيم وذو الشغل والمرض فكانوا يعطون المال مضاربة لمن يتاجر به بجزء مسمى من ربحه فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه وعليه هي قاب كان نوعا loo macaamilo lacagtay qofna yeesho lacagtay qofna uu xoogii yeesho xitaa xilligii jaahiliga islaamka hor waa jiray dantaana keentay oo qof weyn iyo qof yar iyo haweeney iyo qof mashquula iyo dad hanti leh oo u baahan hantida lagu shaqeeyaba yaa jiray ilaa xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa soo gaaray nabigu markuu ogaanina waa sugay waa ogolaaday saasa markaa saxaabadu ugu dhaqantay iyo muslimiinta dhamaantood ay ugu dhaqmaan iyadoo aan khilaaf lahayn aahaarta waxaanu ka tilmaami karnaa saxaabada ee laga wadiyey caqdiga noocan ah ama heshiiska noocan ah cadaynaysa xakiim ibnu xizaam oo saxaabi weyn oo jaliil ahaa radi allahu tacala canhu ayaa wuxuu tilmaamaya bayhaqi fi sunan alkubra wuxuu ku leeyahay annahu kaana yashtaridu cala arajuli ida acطaahu maala muqaaradatan an laa yamura bihi badna waadin ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال وأثر صحيحة حافظ ابن حجر من الإسناد سوى قوي علماء كلنا صحيحيين مركا أثر كسحة المامي حكيم بن حزام مركا وقف حول أديبه مقارضة أديبه مضاربة أهان ولا كل شقي فإذا أن وداقنا وكل بلم يشتري حولها يجا تق biyamareen ha marin wax nool ha ku iibinin haddii beedmahayo bad ha saarin haddii aad shuruudda khilaafto wixii khasaaraba adaa magdhabaya ama adiga xambaaraya buu odhan jiray sidaas le cuthmaan ibn cafaan radi allahu tacala canhu waxaa la warinayaa calaa ibn cabdiraxmaan baa wariyey can abihi can jaddihi in cuthmaan ibn cafaan radi allahu tacala canhu uu awowgii xoole u dhiibay oo ugu dhiibay inuu ku shaqeeyo faa'iidana ay wadaagaan marka waxaad arkaysaa saxaabadii oo ku dhaqmaysa sidaas le cumar ibn khadaab radi allahu tacala canhu qisa macruuf ah laba wiilo uu dhalay baa xoole ka soo qaaday abu muusa alashcari oo gobol ka mid gobolada muslimiinta jooga hanti bay soo geliyeen iyo ganacsi soo geliyeen markay madiina yimaadeen bay yidhaaheen intay iibiyeen lacagtiina waa tan uu noo soo dhaweeyey abu muusa intana waa ka faa'iidnay cumar radi allahu tacala waa diiday wuxuu suuragal maaha xoolaha muslimiinta lahaa xoolihii baytulmaal ku socday bay ahaayeen waxaad ka faa'iideen waxaa muslimiinta leh shidin kuma lihidin iyana waxay dhahay annagaa shaqaynay annagaa ka soo saarnay faa'iidadan lacagtii intii loo dhibay intaa un bay ahay waxay saxaabadu ku dhexdhexaadiyeen maad ka dhigtid qiraad ama mudaaraba oo inay xoogga leeyihiin muslimiintu inay xoolaha leeyihiin faa'iida ka soo baxday la wadaago sidiiba ogolaaday oo cumar oo amiirkii mu'miniinta radi allahu tacala khaliifat almuslimiina iyo haddee baid mahayo saxaabadii kale saas isla ogolaadeen marka la isku xooriyo aahaartaas waxaa laga fahmaya mudaarabadu caqdi iyo kontract iyo heshiis saxiixa inuu yahay oo shareecada islaamka ku bannaan وهاجاج دكتور أحمد الله سبحانه وتعالى كبركيه مشروعية كذا ما يسا أما فائدة وجناعة تدا أولى هي هذا دكتور كتابته بسم الله الرحمن الرحيم waxaan oran karnaa xikmadda iyo ujeedada ku jirta in la baneeyay mashruuca noocan kala ah ama ganacsi noocan kala ah way caddahay oo waxay ku caddahay qof baa hanti leh oo hanti badan Ilaahay siiyay laakiin aan aqoonin sida loo rogrogo ama sida wax looga soo saaro ama ganacsi lagu sameeyo mid baan awoodiiba lahayn oo soo caafimaad hadda beed ma hayo mid caafimaad qabaan shaqadii garanay mid aan caafimaad qabin baa jira qof gaboobay ilma yar hadda beed ma hayo qof xanuunsanaya
marka in badan ba waxaa la arkaa qof hanti leh oo aan isagu qof aan jaanis u haynin mashquula laga yaabaa inuu ama xafiis dawladeed joogo ama shirkad ka yahay shaqaale ama wax la mid ah waqtigiisu aan markaa bannaanayn jaanis aan lahayn xoolihiina wuxuu doonayay inuu wax ka soo saaro marka qof gacan bannaan oo shaqadii ama uga aqoon badan ama haddii bayd mahayo uga jaanis badan buu dhiibaya markaasaa kii hantida lahaana hantidiisii isagoo fadhiya wax ka faa'iidaya kii aan lacagta haysan ee laakiin yaqaana xirfaduna wuxuu u baahnaa qof maalgeliyo oo kaga shaqaysiiyo oo meel wax ka soo saaray iyo meel ka hela biilka qof cid u suura gelisa marka baahidii labadii dhinacba ku daboolmaysa hantiilihiina hantidii buu helayaa hantidiisii buu faa'iido ka helayaa qofkii faraha madhnaa ama faqiirka ahaa laakiin xirfadlaha ahaa ee yaqaanay suuqa iyo ganacsiguna wuxuu helayaa jaanis wax ku soo saaro marka labada darafba waxay u tahay faa'iido marka iyaga gooni si gooni loo fiiriyo marka mujtamaca ka kul loo fiiriyo mujtamaca guud ahaan mujtamaca haddii mudaarabadan la fasaxo sharcigu uu fasaxay yani la dhaqan geliyo mujtamacu waa dhismaya dadkii hanka lahaa wax soo saar khibradda lahaa haddii bayd mahay ikhtiraxaadka iyo ibdaacaadka iyo inay hal abuurka lahaa dadkiiba waxay chance u helayaan inay helaan lacag ay ku shaqeeyaan waxaa dhismaya warshadihii waxaa dhismaya haddii bayd mahayo ganacsiga iyo tijaaradii waxaa kor u kacaya haddii bayd mahayo dhaqaalihii guud ee waddanka iyo muslimiinta kor u kacaya marka ujeedada ka dambaysa in la shariicadu banaysay mudaarabadu waxaan oran karnaa waa ujeedada ah in maslaxadii labada dhinacna la helo iyo dantoodii fusho mujtamaciina guud ahaan bulshadiina guud ahaan ay ka faa'iido oo kaabayaashii noloshu ay markaasi abuurmaan oo haddii bayd mahayo taaba galaan oo hagaagaan doctor weli bangiyada Soomaalidu mudaarabada marna ma bilaabeen inta aan ka ogahay waxaan filayaa wali si yani caama uma yanfurin intaan ka garanayo xasuusnahay laakiin waa dhici kartaa bangiyo mashaariic ku jira inay jiraan sida korontada oo kale tijaarada oo kale inay jiraan waa suuragal oo u leh awood inay dadka lacagaha ka qabteen ku maalgeliyaan mashaariicda laakiin inta aan ka warhayo malaha si caama wali umayan dhaqan gelin ilaa hadda waxay wadaan tamwiilka muraabaxada iyo waxyaalo madabay inta badan wadaan laakiin mudaarabadii inta badan ma ay sameeyaan waxay u baahan tahay mudaarabadu mashruuca bangigu lacagta ka qabto macaamiisha mashruuca uu gelinayo inuu daraasad ku sameeyo kaamil ah in uu u helo kaadirkii ama haddii bayd mahayo tiimkii ka shaqayn lahaa in loo helo waxaan ka midho dhalin lahaa marka waa hawl fara badan u baahan runtii daraasad iyo cilmi baaris fiican u baahan marka bangiyada ay isugu toosto waxaan is leeyahay waa mashruuc la furi karo kana qiimo badan muraabaxada qofka inta shay laga iibiyo lacag la saarto iyo wixii la mid ah kana in badan ka qiimo badan way kaasu nafcigiisu muraabaxada waa shay khaas ah qof baa gaari doonaya gaara laga iibinaya xirba laga macaashaya laakiin kani wuxuu horumarinayaa bulshadii oo dhan xoolihii iyo beerihii iyo warshadihii iyo wixii oo dhan ayaa lagu maalgelinayaa lagaga shaqaynayaa waxtarkiina bulshada oo dhan u saameynaya marka doctor sin bulshadu ay aad u sii fahanto caqdigan mudaarabadu waa maalgashi ka muraabaxadana waa maalgelin marka hadda wax moodaa bangiyadu doorkooda kaliya inay tahay iyagu inay cid maalgeliyaan laakiin inaysan weli bulshadu bangiyada maalgashan marka taas maalgelin iyo maalgashi waa loo kala wada Soomaaliya waa Soomaaliya luqada carabigana maalgelintu waa tamwiil maalgashiguna waa istithmaar marka labada qaybood maalgelin bangiga cid maalgelinaya lacag way cid lacag u baahan buu yuu lacag siinaya laakiin qaabka inta badan bangiyada islaamiga u siiyaan maaha lacag cadaanahe waa in ay si kale u siiyaan sida muraabaxada oo kale waxay ka soo hadleen ijaarada mutayib tamliik oo kale المشاركة المتناقصة يوحي لمدة إقابك نوعسوي مالقش وحوي مجتمعي وبلشدي مالقشان يساب بنقيا العقب كينيا العقب تاسال لو شغينية بنقيا ويليهين أكاونيو استثمارية أما حسابات الاستثمار أما investment account ويليهين وين قبطان صافي ليو لعقها يهدي بإن ما هيو معلشو كقبطان
ku magacaaban in wax lagu maalgelinayo oo bangigu uu ku sameeyo mashaariic ganacsi uu ku maalgelinayo iyaguna ay maal gashadeen laakiin waxaan filayaa wali inayan aad loo bilaabin baan rajaynayaa marka saasay ku kala duwan yihiin maalgelin iyo maalgashi inaasan ka odhan karnaa وهاجاك دكتور هذه الدوما سنتهاي وحيدنا اسوديننا دكتور فرقي قود حية مضاربة وأقف إن عدل وحمد أقف كان إن فدوان قتين الحقي سكريسة عمل إجارة كريسة وكم عقد مضاربة يا عقد إجارة يجمع حكل دوين وصفي عن سأفتحه إجارة وقفك إلا laga kiraysto xoogiis ama in laga kiraysto hantidiis wax la mid ah xoogiis la kiraysto oo shaqeeyo amal u sameeyo ama hantidiis la kiraysto gaari uu leeyahay guri uu leeyahay wixii la mid waxay markaa kala duwan yihiin ijaarada qofka marka shaqo ahaan loo kiraysto shaqaale uu yahay waxa uu qaadanaya way cad yihiin yani waa wax sugan waa in sugan $100 bishiiba $200 bishiiba iyo wixii la mid ah shaqada uu qabanayana way xadidantay iyana way cadda laakiin halkan mudaarabada qofku lacagtu qaadanaya wax xadidan maaha wixii soo baxa ay wuxuu ku leeyahay percentage kamid ah nisba kamid ah saami boqolay ah hantida marka uu shaqeeyo wixii soo baxa ee faa'iido ah hantida ka soo baxa ay wuxuu ku yeelanayaa qayb kamida oo saami boqolay lagu sii sheegay boqolkiiba 50 30 iyo wax la mid inta kale baad waxa yeelan ninkii hantida lahaa oo rabbul maal yiraahdo meesha ijaarada qofka lacag cad baa loo sheegaya $100 bishiiba iyo wax la mid shaqadu qabanaya suuq waa soo kala haysa 6 labatood ka baxaysa kan laakiin shaqadu xitaa ma xadidna lacagtina ma xadidna yani kuma xadidna si go'aan ma xadidna laakiin si percentage bay xadidanta qodobka labaad kala duwan yihiin ijaarada qofka marka la kiraysto la yiraahdo aniga ii shaqee hadee bayd ma hayo wixii biil waan ku siinaya mushaar waan ku siinaya waxa weeye hantida waxa iska leh hadee bayd ma hayo ninkii lahaa baa leh wixii dhibaato ku yimaada hantida ku yimaada waxa weeye qofkan haddii tacaadi tafriid sameey midna magdhabi maayo mudaaraba lafteedu waa la mid khasaaro waxa taxamulaya hadee bayd ma hayo ninka rabbul maalka laakiin qodobka kala duwan waxa weeye ujradii waa xadidanta kan ma xadidna saami boqolay wixii soo baxa shaqadii ijaarada ama kirada waa xadidanta tan se ma xadidna qofku isaga laga doonayaa inuu waqtigiisa kala qaybsado qayb ka shaqeyn lahaa waqtigan uu markaas sameeyo tawqiidka marka waa tawqiidka mudaarabada ama waqti maxadada in lagu jangooyo mudaarabada tawqiid culimadu isku khilaafsan tahay in waqti go'aan loo sameeyo iyo loo sameeyo laakiin waxay u muuqataa inay iska banaanaanayso hadii hal sano baa lacagtaas ku dhiibay waxay markay dhamaato halkaasna jooj yani wax ka dambaha ka sameyn marka waxa joogsanaya waa shaqadii iibka iyo iibinta ahayd yani inuu qof wax soo iibiyo cusub waxa marka bilaabmaya alaabta taala inuu cadeeyo kaliya ya bilaabmaysa si wixii loo ogaado faadiga khasaar marka la cadeeyo kadib la fihi ma joogaan mise ma joogaan haday joogaan maxaa faa'iido la helay marka waa la sameyn karaa tawqiit laakiin in qaabkan loo dhigaa qofku waxa muddo sanad kadib mesela ama 6 bilood kadib wuxuu joojinayaa inuu wax cusub soo gato wuxuu bilaabayaa cadayntu cadayn lahaa hadee beed ma hay hantida kadib markii cadaatana waxa loo qaybsanayaa faa'iidada soo baxda saami boqolay hadaa faa'iido jirinna insha Allah ka hadli doonaa waxa weeye inna wuxuu khasaaraya xoogna wuxuu khasaaraya xoolihiina دكتور marka ka bixida xagga maaragtay aqdiga ka bixidiisa isaga yani maalku soo ogeysin ma ka bixi karaa ma dhigi karaa niyo ka noqday raalli ah oo hanti igu soo wareeji gaari u dhigto tiro ku shaqay gaariga adiguna gaariga waa leedahay isaguna xoogii darwalnimadu leeyahay gaaru inta badan soo kiro noqda laakiin qof waa ka hadli doonaa shuruuda waa in lacag cadaan loo dhiibaa waxa lagu shaqeynaya waa lacag cadaan sida jumhuur ulama ay qabaan ala kullin hadii mesela aan ku dhaahdo Saabi Fataaxo lacag $100,000 ku shaqeey oo aan ku dhiibo adna waa oran kartaa saacad kadib maalin kadib idii lacag tiran leeyahay ma ku shaqeyn kari maayo chance maayo ana waa oran karaa waxa ii socay
laakiin culimada qaar waxay leeyihiin hadduu shaqo bilaabo qofka mudaaribka ah oo uu hawl galo waxa weeye qofka kale kama bixi karo مثل lacagtii waan kuu dhiibay bil kadib adigoo lacagtii ku iibiyay alaab oo shaqada ku dhexda baan waan ka baxaya imaam Maalik wuxuu leeyahay kama bixi karo sababtoo ah maxay qofkan juhdi ma hawshi ka galay xuquuq buu yeeshay xuquuqdii marka in la helo oo hadee beed ma labadii qof ilaa ballan bay lahaayeen lacagta ku shaqay wixii ka soo baxay qaybinta laga ku leedahay waa in marka la cadeeyo alaabtii marka qofkan rabbul maalka kama bixi karo hadii marka la isu geeyo hadii shaqadii aan la bilaabin qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo culimo ay qabaan hadii aan la bilaabin hadii la bilaabayna shaqadii la bilaabayna imaam Maalik wuxuu leeyahay lagama bixi karo ilaa qofku wixii markaasi xuquuqdiisa helay wixii lamida وهاجا دكتور مضاربة iyo qardiga qard الانتاج يعني maxaa u dhaxeeya farqi u dhaxeeya qardigu waa amaah mudaarabada waxa la yiraahdaa qiraad laba magac isu dhow qiraad iyo qardi marka mudaarabada qiraadna waa la yiraahdaa macnaheedu waa kaaynu soo tilmaanay in qof uu xoolo leeyahay lacag leeyahay nimaan lacag haysan laakiin xirfad leh u dhiibay ku shaqeeyo qardigu waa amaah lacagtan هو ثالث كنا حوله استكنا ما هيستو لكن وحده حولهن وأما كون كادور قاد كوشقة أنا الله فهم لي وحي كسب بحنا في الأذاري وأما مركب وحي سجيهين لبضة مد والبا نبى العقب بحنا العقد وقاضنية لبضة مد والبا العقد والوشغينية لكن بعد كل دوينهين مدوا وفائدة وداق ومضاربة وحاوي وحي كسب بحا waxbaan ka doonaya adna waxbaan ka siinaya marka saami la isla ogol yahay oo boqolay ah seen hore u tilmaanay bay ku qaybsanayaan midna waxa way wixii ka soo baxa anuu muxsin baana yaani waxba dooni maayo wixii ka soo baxa adiga iskale wixii ka soo baxa adiga iskale dhanka way ku kala duwan yihiin dhanka kale ahkaamta ku kala duwan yihiin qardiga qofkii markuu qof lacag amaahiyo qofkii lacagta hantida lahayd waxa maahiya rabbul maalka ahaa haduu waxa maahiya wax dheef ma weydii karo qofkan كونك أسيس وكل شيء قصة تريده كل شيء هدو كهلا طبعا كون كهلا إلى هاي داف بدك السيو هل شيء اللي موجودين كرت وقرضي وأما هدي وحودي ستنفعية أما وحسوع اللي تراهدو كذا يرادا كونكي واحد نقول ساربو بينما كان كلا مضاربة أصلا ما وحلو تلقى لين فائدة اللي وداقو الله قبصده وكذا كل دوينهين قرضي هديها انتظر لنطه كودي هوس واحد يقول يقف كل ديبي أما هكو فائدة أما هكو خسارة مر والبا أنتي لو ديبي كونكي مثلا هذا نكونكم مثالني كونكي وحال يقدر يقف كل ديبي أما ها فائدة بس ما خسارة إلا أنتم ما قليو وحبا وقليو راشين ما لا دعو أما ما يقبته وقرضية إن مركا وحي خسارة إساق السوق به وحي فائدة إساق السله لكن مضاربة هنتدا لفها وحي اللوما وحي كلمين قفكي حولها لها bay kalumeen hadii la faa'iido waxay u qaybsadeen sidii lagu ballamay Allahumma illa hadii qofka kan mudaaribka ah mudaarabada qofkan caamilka shaqeynaya haduu isagu sameeyo ihmaal iyo dayac ama xadgudub haduu sameeyo wixii isagu uu sababay waa la weydiin karaa khasaara laakiin hadaan ihmaal iyo dayac iyo xadgudub midna sameeynin khasaaraha ku yimaada ganacsiga ee dabiiciga ah waxa xambaaraya qofkii lacagta lahaa xambaari maayo qofka caamilka shaqeynaya ma xambaarayo marka labada qodob way kala duwan yihiin qardiga iyo qaraadka ama qardiga iyo mudaarabadu wallahu aalam جزاك الله خير جزاء دكتور iyadana waxa isku weynaa mudaarabada maadaama ay tahay heshiis iyo aqdi la kala galayo arkaanteedu maxaa weeyaan yani tiirarka laga rabo markii mudaarabada la galayo waa su'aal fiican sababtaa عقود هشيسية جناعسي من البوا حيلة أركان بيله كده يكون تاجنته هاي وأنا ضعف كريم بس كمضاربة حيلة شن تير بيله هاي مضارب وأقف كشقينية وإلا هذا قف شقينية وحولك شقينية رب المال وهنيك حولها إسكاله وعنتي لها صدح حوله وإلا هلا لو شقيه هديك الحول محي يكونوا تبعيس كأنه كتاب نقرنسا أفر عمل وإلا هلا شقة وين ماشي تالله هدي حولها وكودي بعض كوبا شغيد فائدة مليه شن ربح وين لا هلا شن تأثير بلا ضحي لبعض عاقدين كا وكا حولها له
iyo ka xoolaha loo dhiibayay caamilka shaqeynaya xoolo camal ama shaqo ribix oo ah macaash shanta tirbeeleeda mudaarabadu waxa uu heliya siiqada hadii caaqideenka la kala saaro waa shan hadii aan la kala saarin caaqideenka isku mid waxa raacaya siiqada oo ah qaabkii heshiisku u dhacayay waa waxaan ku dhiibay lacagtan kugu dhiibay ku shaqeyso faa'iidada aan yeelano inta iyo xilmi دكتور مضاربته مع عقد إسكيس وتاجمة مثل عقود كل هوس كلا مضاربته عقد مستقل وحقودها كم بدي هي عقود معاملات كمالية وأنا عقد مستقل ومرحبا بناوي بعدما أركان تسعة كهذا الني بحينه كتابة كنا شروط ديس شروط الاستفتاح هو حنوقف قيبين كرنا دور قيبات لبعض قف هشيس كجلية ورب المال كمضارب كا iyaga waxa laga doonayaa ahliyada tawkiilna leeyahay macnaheedu labadooda mid walba ahliyada tasarruf inuu leeyahay waa inuu yahay qof caaqil ah aqli leh oo aan waalayn qof qaangaar ah qof adeeb rashiid ah oo aan qof ama maskaxdiisa wax ka siihiin waa aanu ahayn waa inuu wax wakiilan kara labada marka caaqid waxa laga doonayaa shuruuda maalka waxa laga doonayaa isagana shuruud marka koowaad jumhuur ulama waxay qabaan culimadoodu maalku inuu kaashiya maalka lagu galiyo mudaarabada qofka mudaaribka loo dhiibay lacagta in kaash loo dhiiba waa raashin iyo badeecad iyo alaab loo dhiibay wada culimada qaar qabaan hadii badeecad loo dhiibo badeecada qiimaheedii baa noqonaya xoolaha raas maalka ah ee lagu galiyo heshiiska laakiin jumhuurku waxay qabaan in kaash loo dhiiba waxa kamid ah lacagtu inay tahay cayn oo inaan deynahay يعني هذا دينتي أن كقولها كل شيء صح ما وين العقل يقول ديبه أما دينتي السؤال إذا كتبنا أن دينك يقول ديبه سجمر العلماء يقبان وحكم ده شروط داس ولغاية المام كرا العقتها وين قدر كذا اللي يقانا شانقو أنتها وهذه العقتي هدو تو أنت العيسى كادي عن شانقو أنين هدو تو اللي وحلا معاش بحال في ذاك الجرام ماي رأس مال كوين عديه كون دور لو كون طبعا كون يحل منه وأن أحكيها لك السجنين وهكذا كمل العقد وين لا قدونسيه qofka caamilka lacagtii aan loo dhiibin shidci maay waa in la guddoonsiyo ribaxa iyo macaashka la kala qaadan isna shuruud buu leeyahay waxa kamid ah awalan waa inuu qaab nisba ah waa in lagu ogyahay yani qaab saami boqolay ah waa in loo sii xusaa heshiiska lagu xusaa lacagtan ku shaqay faa'iido ka soo baxday waxaan ka leenahay meel iyo laba meel yani saddex meelood meel baa leen laba meelood baa leen iyo xilmada ama bar iyo bar baynu ka leenahay faa'iidada nisbadaas nisba shaa'ica weynaytay waa in lacag cad oo loo boqol dollar baa leen lama oranayo waxa la wixii soo baxaad ku leedahay bar iyo bar aynu ka leenahay marka labada shardi baa ribaxana hadee bayd ma hayo shardiya دكتور maxaynu ku tilmaami karnaa inta badan mudaarabada waxay isku eg yihiin qofka midalan gaari u dhiibaysa harta gaarigii maarata ku shaqay faa'iido wadaag baana marka kama kira mise waa mudaarabo bawr safarta gashaa inta badan jumhuur ulama waxay qabaan inay tahay sharika kale tahay aanay ahayn mudaaraba waxay leeyihiin inay noqotaa lacag ama badeecad la iibinayo markiiba lacagta ka soo baxda laga dhigayo bahalkii ama badeecada la qiimeyn wax la oranayo boqolka kish maxay joogan suuq waxay joogan min $30 3,000 ma marka raasmaal inoo ah oo aad hadhowtu marka xisaabtamayno raasmaalkaygu waa 3,000 wixii ka dheeraad inuu qaybsanayna laakiin wuxuu markay noqoto hadee bayd ma hayo gaarigan ku shaqay wax ka soo baxaan wadaagayna iyo wixii la mid ah mashruucan ku shaqay lacagtan aad bixi kaliya soo qof xifrada buu yaqaana mashruuc baa ku rajisaba oo waxa tir mashruucan adiga maamul oo ka shaqay dhammaan adiga kharashaadka bixi isaguna wuxuu leeyahay waqtigii iyo wuxuu leeyahay iyo maxaa la kara waxa duu yahay mashruuc kale lacag baa lagu kiciyay duu wuxuu mashruuc yahay lacag baa lagu kiciyay marka lacagta mashruuc lagu kiciyay waa raasmaalkiya yani wuxuu haduu yahay aalad muayana sida gaari wax la midana waxay noqonaysaa aqdiga in la waafajiyo karada oo la yiraahdo waxaad leedahay $100 ama $200 ama $300 wax la mid ah wax muayana in la tilmaamo laakiin waxa haduu yahay mashruuc la maal gelinayo wax lagu xisaabtamaya
ورأسمالكي جود مشروع كاسة مركا رأسماله وحي صوب بحي رأسمال كاردير يلو ذاك فائدة. لكن دكتور أنت بدن واحد هان يعني جناح ستادو قف كان دام كله شيء شهر قان هو مش شقين الأولى أنا وحلين كله هو سنيجا مشاركي عليه سيس مركز أودعين فائدة ذاك بالغديكا مركب حنو أصل وأنا صدق اللوجو بدني هي قفة مثلا تكامل حتى هدي قف كله دي بيو فاللي هوشنا هذيك قبو وحلا عاق عدان لما ديفن لكن alaab aalad ama cagaaga faloo dhiibay ama wuxuun baa loo dhiibay marka lacag mushahar looma qoro waayo in wax soo saar rabo marka leeyahay waxaad soo saarta wax ku leedahay marka aqdiga noocaas oo kala doctor wala inta aqdigaasi waa ijaara waa inay markaa u noqoto ahkaamta ijaarada sababta loo leeyahay caamilka oo nisbada shaa'ica ama hadii percentage-ka marka aan muayyan ka ahayn sababta sharciyadu u ogolaato waxa weeye qofkani isaga shaqeynaya isaga hindisaya mashruuca lacag baad u dhiibaysaa inuu soo iibiyo dhar inuu soo geliyo raashin inuu soo geliyo xoolo nool isaga hindisay isaga muhandiskii ah injineerkii waday shaqada isaa wuxuuna dooranaya waxa uu isleeyahay faa'iido qiimo badan baa laga helaya laakiin aduu haddaad doortay oo dukaan intaad camirtay saraawiil iyo shaarar iyo macawiso iyo cabaayada dhigtay oo dukaan iibinaya ka dhigtay waxa laga yaabaa inuu ku qanacsanayn bakan inuu yahay kii faa'iido badan laga dhalin lahaa sidaa darteed marka waa in la siiyaa wax go'aan oo la isla ogyahay laakiin mashruuca nisbada shaa'ica ama percentage saamiga boqolayga ah ee aan cayinayn la kala qaadanayo qof marka loo dhibay isaga barnaamijka lacagta loo dhibay aduu hindis wixii dhan hindis marka waxaan isleeyahay waxay ku qoman tahay hadii aan qofka totally loo dhibay wixii isagu uusan yeelanaynin handasadii iyo engineeringkii mashruuc haddaan isagu yeelanaynin waxay ku qoman tahay inuu noqdo shaqaale caadiya leh mushahar caadiya oo muayyan ah wala yaqaan بعض الأحيان علماء waxay sameeyaan qofku aan dhaahdo ganacsato waxay sameeyaan qofku isagoo mushahar leh waxa la siiyaa hadii aad dhaliso faa'iido wacan faa'iidada soo baxda percent kamid 10% ama 20% lagu siinaya oo ka dheeraada maxay mushaharkaagi hadii saas oo kala tahay dhib male laakiin asalku haduu yahay faa'iido wadaag ee aan noqon waxay ku wacan tahay in la waafajiyo aqdiga mudaarabada oo qofka isaga inta lacag loo dhiibo loo daayo talaba ku yeelo oo adigu waxa tiraahdaa xoolahan ha gelin mesela oo ka dhig mudaaraba muqayyada laakiin isagu inuu mashruuca hindisiisa yeesho bay ku qurux badan tahay wallahu a'lam doctor marka ganacsada noocaas oo kala ah maxaad ugu naseexayn lahayd kirada soo ma aqbali kartaa nisba shaa'ica yani in la dhaho mashruucan saddex meelood oo meel anaale meel adaale meelna waa kharashaad saasay dhahaan hadii waaqica ka hadalno marka waxa ugu naseexayn lahayd kirada waxaan ku naseexanahay kirada in la waafajiyo oo qofka mushahar sax loo qodo si qofka wixiisu u cadiyay hadii kale in hindisaha iyo wax oo dhan la siiyo lagana dhigo adeebed mahayo faa'iido wadaag laga dhigo in marka labada aqdi mid la kala mid la waafajiyo baan ku talin lahaa wallahu a'lam waldii kara marka intii lacagtii la qiimeeyo sheeg intuu ku baxay la qiimeeyo la dhaho mashruucan $2,000 baa ku baxday marka $2,000 baan yani kugu mudaarabay iyadoo loo dhiibay aalad maya alaabta hadii la iibinayo oo ay tahay maya gaadiid iyo wax la mid soo maaha maya mudaarab noqon mayso laakiin haday tahay badeecad la iibinayo mesela waxaan haystaa bakhaar dhan oo raashin ah waxaan leeyahay bakhaarka waxa ku jira 100 kiisho bariisa 100 kartoon oo baasta ah ee mid walba qiimihiisu waa inta total inta weey waxa mudaarabo kugu la gelayaa badeecadaas qiimaheeda inaad ku shaqeyso marka waxa la qiimeynayaa alaabtii taale marka la qiimeeyo la isu geeyo mesela waxay gaadhay $10,000 10 kaas ala Soomaal noqonaya alaabta tan uu iibinayaa ninkan iyada laga shaqeysiin ma wala iibinayaa waayo mudaarabadu ma aha hadee beed ma hayo aad lagu shaqeynayo waxa weeye qofku inuu waxan ka baac mushaariisi soo iibi wax la midow daawadayaal inta waxaan ku soo afmaareynaa xalaqadeennii ku saabsanayd mudaarabada
qaybteedii koowaad waxaad dibdib uga daalacaan kartaan xisaabtan ku leenahay bartay Facebooka Amal Bank iyo YouTube-ka Amal Bank iyo Twitter-ka iyo Instagram-ka sidoo kale TV-ga khamiis walba si toos ah ayuu 6 galnimo markay tahay saacada gees ayaad mar ka daalan kartaan wixii su'aalo ah iyo tusaale ah waxaad nagu soo diri kartaan email-ka iyo telefoonka shaashadani ka muuqda intaynu xalaqadan mid la mid ah ku kulmi doona asbuuca dambe واستعجب anigoo ah iyo Dr. Axmed Jaan Ismaaciil Mir la taliya anigoo ah iyo oo in kaga tagayna intaas iyo nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka dhaqaalaha islaamka waa barnaamij asbuucla ah oo in kaga yimaada TV-ga Kalsan xaruntiisa dhexe ee uu ku leeyahay magaalada Garowe barnaamijka dhaqaalaha islaamka waa barnaamij uu maalgeliyay bangiga Amal kana turjumaya xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa noqo xalaal cun waxaad noqonaysaa qof ducadiisa la aqbalo barnaamijka dhaqaalaha islaamka waa barnaamij cabiraya himilada bangiga Amal ee ah inay bulshadu kala barato ganacsiga xalaasha ah iyo midka xaaraanta ah haddaba daawade kala soco barnaamijka dhaqaalaha islaamka khamiis walba 6 maqribnimo markay saacada geeska Afrika ay tahay TV-ga Kalsan kuna soo dirso wixii su'aalo ah qabto ee ku saabsan dhaqaalaha islaamka iyo heshiisyada ganacsi ay bangiyada islaamka ay fuliyaan emailada iyo telefoonada shaashada kaga muuqda